midda weyn waa mahadcelin Soomaalida meel ay joogto waanu mahadcelinayaa maanta maadaama aan waqti dheer maqnaay mahad kadib Soomaali weyn meel ay joogto gaar ahaan dadkii reer Wajeer reer Mandera reer Nairobi Soomaali gudi waanu mahadcelin sida sharafta leh oo maarta waqtigii aan maqnaay oo adkay asu garab istaagtay oo maasandid mahad kadib maanta bresk waxaan ugu yeeray waqti badan baan maqnaay waqtigii maqnaayna war oo ku tirikuteen umbaa liigi sheegay nin wax ku maqayaa wax ku maqayaa la atuna saacada nin haysta magaranay dad uu mask xirnaa dadkii haystay laakiin afduubkaygi markii ninka ragga waxa waa dareemi kartaa afduubkaydana waa dareemi waa isku salaysnay siyaasad taas oo ah sida hadda Ingiriis soo sheegay waxa jirtay inaan gaabana isku qabsan anagoo tiimi budgetka isku qabsan yaa jirtay waqtigii uu soo wahay arrimii budgetka aan ka hadlaynay ani kaliya rag kale la joognay arrintu waa isku mar weyni maadaama isku mar weyni raarti budgetka isku maadnay kulay wixii dhacay TV-da ku jirtaa waa saarteen caalamka ku jirtaa macayl anagoo ka dagaalamayno budgetkii aan ku salaysneen dadkii dantii guddiga oo baarta county-ga aan ku salaysneen asahay waan ka hor imaadnay haddii aan ka hor imaadnay gurigaan isku xirnay markii kadib aniga intaan guriga ku jiro soo wacay county commissioner oo isugu dhahay arrintaan iska hor imaaday marka shaqada laga qabani ani waxaan ku dhahay county commissioner ani shaqadayda haystaa nin elected oo MCA aan ahay adina iskuurta u saaran tahay marka shaqada qabso ku dhahay saddex beri ka bacdi waqti yar taarabdi wixii kulli waxa sindala igu soo dhuftay telefoon waxa isugu dhahay niyo waxa laga baahan yahay niman la dhaha county security committee laga baahan yahay isugu dhahay ani waxaan nin elected aan ahay verbal communication kuma imaano war afka laga sheegay amal kuma imaano warqadii soo diran ku dhahay warqada isoo diri oo dhahaysa inaan security committee daan imaano oo marka aan ka hadla arrimo security oo deela ka jirta oo waxbana ka jirin aan deela wax security problem ka jiro waagaas malaha beenaya marka haddii ninkii yeeri waan meeshii waan tagay waxaan ku dhahay nimiya security meeting oo deela ka jiro ama security oo ka jiro malaha ku dhahay marka arrimihii magaan dib u sii ogaanay waxay ku salaysnaayeen siyaasad sida daraadeed anaga maxkamadda geeyni budgetka maxkamadda geeyni maxkamadda iyadoo socoto ayaan teamkii leeyahay chairman aan qabnay chairmankii aan soo hadlay governor waa isku dhahay arrintan inaan maxkamadda ka soo dejinaa rabnaa wala shahayna inaan isu imaanaa rabnaa anigana Wajeer joogo dan kale aan u soo kicin soo wacayka saaxiibkay waxaas dhahay marka His Excellency the Governor waxaan la kulonsanahay axadii oo saacad 15 waxa laga baahan yahay inaan simaadid Nairobi ana sidii Nairobi ku imaaday axadiideedna jimcadii aan waableela tagay axadiideedna mid ku soo madhay tanta laga lahayna waxaan aaminsanahay inaan Nairobi maado aan la qabto baan rabay maxay hadii oo maarta dan kale ay jirto meeting waa la qaban lahay soo meeting waa sida looga talabaxay marka intaas intaan soo maray ana waa la qabtay maadaama la qabtay wixii li weydii ama meesh li wahay ama ninkii hay waxaan hadda ka hadli kara ma meel ay ahaydna ma aqaano inaan ka hadlana muhiim maaha laakiin waxyaalihii nidaamkii magaan wax kulli ogaanay walaalkay Axmed Cabdullaahi way dhaaf weysi naasay ka dambe way dhaaf weysi marka aniga Soomaali weyd waxaan u sheegaa tolka raabe waxaan u sheegaa cidii qoyska hoos waxaan u sheegaa waaga maanta laga bilaabo haddana wadaxay muddo waxa dhiigay isqaadaysan Axmed Cabdullaahi mas'uulkii wuxuu u dhacay saacadan ka dambe والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.